inaad iga dhigmi karayso imalanaysa soo maaha. caawa iyo filimkii raadkii rajada qaybtii ugu xiisaha iyo xamaasadda badneed. Gabadhii Barni ahayd oo markii gacanta lagu dhigay kadib jirdil xun loo geystay iyadoo gaariga la saaranayo kadib jirdilka ilaa iyo maxkamadda, sidoo kale qaabkii maxkamadda looga difaacay, waxyaabihii qowdhan ku dhacay, qowdhan iyo cawil oo isqabtay, dagaal fara badan. Filimka caawa waa hit, waana qaybtii ugu kulleed. Waxaan rabaa inaan qaybta dambe kugula wadaago sidoo kale ninkii guhaad ahaa oo ka badbaaday weerarkii la rabay in lagu qaarajiyo, sidii ay cawil iyo Barni isu heleen, iyo sidoo kale arooska ninkii la yiraahdo Xareed iyo gabadhii cawil dhalay. Filimka caawa lagama sheekayn karo. Fadlan Xalana Media ku soo biir, subscribe dheh, like iyo share waa xaqiina, commentigana ku cilbaxa. Waan mahadsantahay. Waxaan rabaa inaan kula wadaago filimkii aad wada sugayseen qaybtii afraad ee xamaasadda iyo xiisaha lahayd. Qof walba caawa waxa uusan filayn ayaad filimkaad ka daawan doontaa. Waxaan rabaa si hordhac ah oo brief ah inaan filimka kaaga sii gaarsiiyo inta aanan fasixin muuqaalka. Waxay sheekadu noo joogtay gabadhii Barni ahayd oo la ballamiyey oo asmo ballamisay si ay ula kulansiido aabaheed cawil kadibna ay u sheekaystaan. Laakiin nasiib xumo xogtooda waxaa gudbisay gabadhii ahayd Aragsan ayaa xogta gudbisay, kadibna qowdhana loo soo diray iyagoo rabo maqaayadda inay ku kulmaan oo cawilna wadada ku soo jiray iyo gabadhiisii asmana sugayso. Gaariga markii kasii dogtaba Barni gacanta ayaa lagu dhigay, halkaas ayaa idinkugu dambeysay. Kadib maxaa dhacay? Ninkii ahaa qowdhan gabadhii waa u qaatay, qolka shaqaalaha ayuu la tegay, buudka ayuu kala tuntay, gacmaha ayuu ka xirxiray, cunadii ayuu ka joojinayaa. Kadibna waxaa dhacaya in gabadhan loo qaado magaalo ka baxsan yacni goobta loogu talagalay. Haddaba inta aan qaybta kale u soo walaabanin, ninkii saaxiibka la ahaa guhaad ee ay qadan u dirtay inuu dilo guhaadna waa xasuusataanoo dhalinyaro u diyaariyey si ninkaas odaga ah looga takhaluso. Nasiib wanaagsa xogta ayaa la helayaa, kadibna ninkii tuugada uu soo dirsaday iyo waxaa halkaasi isku fara saaraya guhaad. Jug culus ayaa madaxa ka soo gaaraysa, laakiin waa la badbaadinaya iyadoo rabo in laga siiyo. Isbitaal ayaa la dhigaya oo xaaladiisa ka soo lagu dabiibaya. Laba jecel haddana kala warla. Barnina qolkii ayaa lagu jirdilayaa, guhaadna soo dhaawaca ayuu isbitaal yaala. Ninkii qadar ahayna waxba kama warhayo oo hooyadiis qadar iyo abtigiis qowdhan ayaa waxaas oo dhan maleegaya. Nasiib xumasa gabadhii Aragsan la dhalatay ee Amran ahaydna labadii nin ee gaagayaasha ahaa ee gaangiska ahaa ee loo soo adeegsaday ayaa qabanaya, kadibna kufsi ayay u geysanayaan, muuqaalna waa ay ka duubayaan. Intaas kuma ekaysanayaan waxay la wadaagayaan walaasheed Aragsan, waxayna isku dayeysaa in aysan qoyska u sheegin in arrintan ay wax ka og tahay. Ceeb weyn ayaa ciddi soo gaartay, kiisas badanna oo ay ku furan yihiin. Ninkii qowdhan ahaana waxa uu isku dayi doonaa in gabadhan uu masaafuriyo. Haddaba sheekadu halkaasi kuma aysan joogsan ee wax kale oo weyn ayaa dhici doona. Jacayl xad dhaaf ah ayaa waxa uu dhex marin doonaa ninkii la yiraahdo Xareed oo ahaa wiilkii la dhashay Barni iyo gabadhii Barni ku aabaha ahayd ee yareed oo u dhalay oday cawil. Ninku guriga agteeda ayuu guri ka dhisanayaa, kadibna waxa uu baadigoob dheer u galayaa walaashiis. Waxa ayna walaalaha isla baadigoobayaan isaga maadaama gabar ka maqan tahay, gabadha ay fukaansadana ay gabar ka maqan tahay, iskuna qaab eg yihiin in halkaasi ay wax ka baadigoobaan. Ninkii oday qowdhana waxa uu isku dayayaa gabadhan inuu ka saaro magaalada, isaga oo kontaroolka maraya gabadhuna xirxiran tahay ayay boolis ku qabanayaan. Kadibna kiiskooda wuxuu u gudbayaa maxkamadda ayayna uga sheekeynaysaa wax walba oo ku dhacay. Ninka la yiraahdo oday qowdhan waxaa lagu sii deynayaa damiin. Ninkii cawil ahaana banaanka ayuu ka helayaa. Ilaa iyo haatan cawil ma oga Barni inuu dhalo oo Barni ma uusan arkin, laakiin waxa uu ogyahay in oday qowdhan uu qabi jiray xaaskii uu cawil furay, gabadhiisana isaga ku dambeysay, uuna raadinayo muddo 22 sano ah. Waxa ay isku qabanayaan meel fagaare ah, waana la isdilayaa. Dhaawac culus ayaana loo geysanayaa oday qowdhan oo maxkamad ka ballansanaa. Dagaal xooggan ayaa halkaasi ku dhex maraya. Sheekadu waa faanoole fari kama qorna. Ilaa iyo hata cawil ma oga in gabadha Barniya uu isagu dhalay,
qowdhana waxa uu ku haystaa in gabadhiisii uu meel ugu sheego. Sheekadu intaas kuma ekee, qadan waxaa soo gaaraysa gabadheedii in la xoogay, muuqaalo laga duubay, muuqaaladina ay niman ku rikaateynayaan. Aragsanna waxaa lagu leeyahay lacagti soo dar ama muuqaaladan waa baahinaynaa marka ay tiraahdo gabadhan waa walaashay oo isku daydo lacagta inay bixiso. Lacagta waa ay bixinaysaa, mar kale ayadana Barni waxay leedahay hala kufsado. Intaysa dhihinna ayagaaba ka dalbanaya lacagta inay laba jibaaraan markii ay ogaadaan gabadhan inay tahay walaasheed. Sidaas ayaa Aragsan lagu rakaateynaya. Arrinka waxaa soo maqli doona ninkii la yiraahdo Xareed, waxa uu raadi doonaa qowdhan. Isaga iyo ninkii la yiraahdo Cawilna waa isgarabsan doonaan. Qaybtan ma jirto qayb xamaasad iyo xiiso ku gaarta, waa qayb aan inaba caadi ahayn. Mar kale ayaa maxkamadda la isugu soo laabanayaa, waxa ayna sheegaysaa in hooyadeed nin kale qabay, wiil kalena ay haysatay, aabaheedna qowdhan uu yahay, laakiin iyadu ay arkaysay hooyadeed inuu dilay. Waxaa la tegayaa goobtii lagu aasay, Allah u naxariistay maamada dhashay qadan. Filimka ayaan ku dhahayaay ayaa la tegayaa, baaris ayayna sameynayaan boolisku. Qowdhanna waxaa loo xirayaa si ku meel gaar ah inta kiiskan la baarayo. Gabadhaana waa la haynayaa maadaama isagu uu yiri maskaxda ayay ka xanuunsan tahay. Ninkii la yiraahdo Qadar ayaa waxa uu isku dayayaa booliska inuu u sheego gabadhan inay caafimaad qabto oo ku dadaalo in la soo daayo, laakiin hooyadiis ayaa amar ku siinaysa maadaama caasi waalidiin uu yahay in la xiro, waxayna xabsiga isku arkayaan gabadha la yiraahdo Barni. Guhaad waxa uu qaadanayaa ninka soo weeraray ee tuugada u soo adeegsaday inuu yahay Qadar, maadaama ay markaasi isku haystaan gabadha maalintiina isku dagaaleen. Wuxuu ku soo booqanayaa Guhaad xabsiga, waxa uuna ku arkayaa Qadar iyo Barni oo xabsiga ku wada sheekaysanaya oo ku wada xiran. Halkaas ayuu wuxuu ka qaadayaa masayr iyo caro. Barnina waxay isku dayaysaa inay ka dhaadhiciso, laakiin uma suuroobayso oo halkaas ayay sheekadu jiq uga noqonaysaa. Iyaduse Qadar ayay wax walba u sheegaysaa oo dhahaysaa walaalow sidaan ayay wax u jiraan, abtiga oo aabahay ah ayaana dila hooyaday. Baaris dheer iyo sheekooyin iyo gocosho gadaale kadib waxay meeshaasi iskala ogaanayaan qowdhan inuusan dhalin, laakiin aabaheed uu yahay nin kale. Waxaase soo baxaya sheekooyin qarsoonaa. Mar raba inaan idinka sii hordhaco, waxaa idinka codsanayaa muuqaalkan haddii idin soo gaaray sheerta iyo like-ta inaad naga caawisaan si muuqaalka oo dabka saaran aan markaasi idinla wadaagno. Shirkadada saaxiibayaal idinla wadaaga haddii aan u cusubtiin usoo bira. Halkaanna waa janaalkiinii Xalane Media. Mar walbana waxaan soo bandhigaynaa muuqaalo iyo filimaan idin xiiso geliya, gaar ahaan khulaasada filimkeeni Raadkii Rajada oo ah filimka sanadka 2026. Waa mahadsantihiin.